Markaad maqasho qalab basaas ah, waxaa laga yaabaa in maskaxdaadu ay sawirato qalabyaal laga arko filimada sida filimka James Bond oo kale. Laakiin ma ogtahay in qalabka noocaas ah uu dhab ahaantii jiro oo sirdoonku runtii adeegsado qalabyo aan caadi ahayn? Maanta waxaynu eegaynaa qaar ka mid ah qalabyadaas iyo kuwa la qariyo ee ay adeegsadaan hay-adaha sirdoonka. Fadlan nala joog ilaa dhammaadka. Sirdoonku wuxuu isticmaalaa qalab aad u yaryar balse aad u awood badan, waxayna noqon karaan qalabyadaasi sida saacad la gashado oo leh kaamiro qarsoon, ama qalinkaasoo ah mid wax lagu qoro, wuxuuna leeyahay cod qaade. Sidoo kale sirdoonku wuxuu kuu adeegsan karaa muraayadaha indhaha la gashado, kuwaas oo aad moodo inay yihiin kuwo iska caadi ah balse leh kaamiro wax lagu duubo. Sidoo kale waxay kuu adeegsan karaan koofiyad leh qalab GPS ah, ama kabahaaga ayay qalab duubaya socodkaaga kuugu xirayaan. Dhammaan qalabyadaas aynu soo sheegnay waxay leeyihiin hal ujeeddo oo keliya, midaas oo ah in xogta lagaa ururiyo adigoon dareemin. Dragonfly waa mid ka mid ah qalabkii ugu yaabka badnaa ee CIA-da soo saartay sannadihii 1970-meeyadii. Waxay u egtahay qaab kaneeco, laakiin dhab ahaantii waa diyaarad yar oo daroon ah oo leh matoor yar oo duulaya iyo kaamiro yar oo muuqaal duubi karta. Inkastoo wakhtigaas aysan si buuxda u shaqayn jirin, haddana waxay ahayd tijaabo cajiib ah, waxayna muujinaysaa heerka hal-abuur ee sirdoonku gaaray. Waxaa jira mikrafoonno aad u yaryar oo lagu qarin karo dharka, dhegta iyo tuwaalka, ama xitaa meelaha la yaabka leh sida barkinta ama dhagaxyada muuqaal ahaan la midka ah kuwa dhabta ah. Qaar ka mid ah qalabkan waxay leeyihiin awood ay codka ku duubaan toddobaadyo iyada oo aan la dareemin. Sirdoonku wuxuu sidoo kale isticmaalaa qalab GPS ah oo la gelin karo boodhka gaariga ama meelaha lakabyada ah, bacaha iyo koofiyadaha yaryar ee la gashto. Tani waxay u suurtogelinaysaa in si qarsoodi ah loola socdo dhaqdhaqaaqaaga shakhsi ahaaneed iyo midda gaarigaaga. Dunida sirdoonka maanta, qalab kasta waa ujeeddo. Wax kasta oo la arki karo waxay noqon karaan qalab basaasnimo ah, laakiin dhab ahaantii ay yihiin indho qarsoon. Xilligii basaasiintu ay ku koobnayd dad ku dhuumaalaysanaya guryaha, adeegayaal ku jira meelaha laga shakiyo iyo waraaqo la isku sirayo, maanta waxaas way dhammaadeen. Maanta sirdoonku wuxuu leeyahay kaaliye cusub oo aan hurdo aqoon, aan daalin, lagana yaabo inuu kaa ogaado wax aadan adigu iska ogeyn. Magaciisu waa sirdoonka macmalka ah, Artificial Intelligence. Waxaynu mar kale isdul istaagi doonaa sida ay u shaqayso AI-ga iyo waxa uu u qabto sirdoonka. AI-gu waa barnaamijyo ama nidaamyo kombiyuutar ah oo awood u leh in ay fahmaan, waxna falanqeeyaan, xitaa saadaaliyaan xogta aadka u badan ee maalin kasta soo baxda. Hay-adaha sida NSA ee Maraykanka iyo midda UK iyo midda sirdoonka ee Shiinaha waxay adeegsadaan AI si ay u baaraan malaayiin fariimo, wicitaanno, iimaylo iyo boostiyo, iyaga oo raadinaya hadallo laga shakiyo iyo ereyada khatarta ah iyo xiriirada lala yeesho dad gaar ah. Prism waa barnaamij sir ah oo ay adeegsato sirdoonka Maraykanka NSA, kaas oo ogaan kara xogta laga helo adeegyada waaweyn sida Facebook, Google iyo Microsoft iyo kuwa la midka ah. Waxaana la sheegay in uu daalacdo malaayiin xogood si uu u helo cid laga shakiyo iyo in kale. XKeyscore waa qalab isagana awood leh oo akhrin kara fariimaha iimaylka, raadaaca internetka iyo dukumentiyada ku jira qalabkaaga, iyadoo lagu salaynayo falanqayn aad u qoto dheer. Sirdoonku wuxuu adeegsanayaa AI si uu u aqoonsado wejiyada dadka, wejiyadaasoo laga yaabo in ay ku jiraan dad malaayiin ah
wejigaaga waxaa laga baran karaa oo laga ogaan karaa kaamirooyinka magaalada sida CCTV-da ama xitaa muuqaal live ah oo aad isleedahay waa caadi. AI-ga ayaa isbarbardhig ku samaynaya, wuxuuna awood u leeyahay in uu ogaado qofkaas in horey loo raadinayay iyo in kale, wuxuuna hawshaas sidaa u dheer ku qabanayaa ilbiriqsiyo oo keliya. Waana halka sheekadu ka sii darayso. Sirdoonka casriga ah wuxuu adeegsanayaa AI si uu u saadaaliyo waxa aadan weli samayn. Tani waxay keentay dood adag oo ku saabsan xorriyadda shakhsiga qofka iyo ammaanka qaranka. Ugu dambayntii, sirdoonku maanta ma ahan dad muuqaalka beddelanaya oo keliya, balse waa dad kaashanaya sirdoon macmal ah oo garanaya cidaad tahay iyo waxa aad rabto iyo xitaa waxa aad mustaqbalka qaban karto. Teknoolojiyadda AI-da ee sirdoonku adeegsado waa mid cabsi badan leh hadday gacan khaldan gasho, laakiin sidoo kale waa mid wax badan badbaadin karta haddii si sax ah loo isticmaalo oo gacan ammaan ah ay gasho. Waa hagaag daawade, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii ku saabsanaa qalabka uu sirdoonku isticmaalo iyo teknoolojiyadda casriga ah. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar, sidoo kale nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay si aan u helno asxaab badan oo adiga oo kale ah. Mahadsanidin.